gabadhii loo magacaabay bangiga dhexe Elvira Nabolina weerar culus ayay ku qaaday gafanayaashii bangiyada u furtay si ay u dhacaan hantida dawladda. dhammaantoodna waa ay ka joojisay shirkadihii dhibaatooyinkii kale ee dhaqaalaha ruushka dhibayay ayay u jeesatay markan inay hagaajiso, sida sicirkii saliidda oo hoos u dhacay. waxaa xusid mudan in la ogaado in 60% dhaqaalaha ruushku uu ku xiraa saliidda. hoos u dhacaas ruushku waxay ku waayeen dhaqaale badan oo ka soo geli jiray iibka shidaalka. dhaawacaas waxa uu raacay cunaqabatayntii si looga tallaabsado caqabadahan. bangiga dhexe ee ruushku waxa uu qaatay tallaabo uu ku faragelinayo sayladihii gudaha. taatikada maaliyadeed oo markaas ay qaadatay Elvira Nabolina waxay ahayd nidaam ka mid ah hannaanka dhaqaale oo lagula macaamiltamo saraafadaha. hannaankaas waxaa la yidhaahdaa hannaanka sabaynta cumladda wareegta orbit currency. waa hannaan bangiga dhexe uu goynayo heer saraafadeedka sayladaha. waxa uu jaangoynayaa qiimo xadidan kaas oo leh sicir sare iyo sicir xad hoose oo aan laga gudbi karin. bangiga dhexe ayaa masaafadaas dhexe ku ciyaarsiinayay qiimaha saraafadda isagoo eegaya xaaladda iyo xaajada dhaqaale ee dalka. waa hannaan ka soo hor jeeda hannaanka sabaynta cumlada dhammaystiran full currency, kaas oo saamaxaya in sayladuhu ay gooyaan sicirka saraafadda. si hannaankani u shaqeeyo wuxuu u baahan yahay in dawladdu ay kabto. qorshaha ruushku wuxuu markaas ahaa in $1 uusan dhaafin 30 rubul oo lacagta ruushka ah si loo ilaaliyo xasiloonida maaliyadda. arrintani waxay ahayd aragti kharash badan ay ku bixinayso dawladda ruushku. kharashkaasna meel kale kama imanayn, bal wuxuu faraha la geliyey lacagta kaydka ah oo ay dawladdu leedahay. waayo tallaabada lagu hirgelin karo xasilinta xaaladda dhaqaale waxay tahay in dawladdu ay u dhaadhacdo sayladda saraafadda forex, kadibna ay iska iibiso dollarka ay haysato, isla markaasna ay soo gadato rubulka suuqa yaacsan. dollarka ay iska iibinaysona waa kaydkeedii. iyadoo waxaas oo lacaga ay baxday ayay lacagtii ruushka ee rubulku hor joogsan weyday dollarkii. arrintaasi ma noqon mid daawo u noqon kartay caqabadihii taagnaa. laba arrin midkood ayaa u ekaatay Elvira Nabolina inay qaadato oo hogaaminaysay dhaqaalaha ruushka. mid waxay ahayd inay ku sii socoto siyaasadda dabsaarka dollarka kaydka u ah dalka. midda kalena waxay ahayd inay qaadato siyaasadda hannaanka sabaynta cumlada dhammaystiran. laakiin arrintan waa mid ay ka dhalan karto natiijo siyaasadeed oo aan la mahdin. Nabolina waxay dooratay arrintan adag oo ay ugu muuqatay in dhaqaalaha ruushku ku badbaadi karo. balaayiinta dollar oo laga soo saaraya kaydka dalka waxay u muuqatay inay hiil u tahay shirkadaha waaweyn ee dalka. shirkadahan ayaa haddii ay la culiyaamaan dollarka la'aantiis oo ay deynka iska bixin waayaan, gaar ahaan shirkadaha dibadda ee ay la xidhiiraan, waxay noqonaysaa markaas in shirkadaha ruushku ay xirmayaan. sidaas darteed aragtida gabadhani waxay ahayd dollarka suuqa lagu sii daynayo inay ka faa'iidaystaan shirkadaha ruushku si aanay u culiyaamin. Elvira Nabolina aragtideedii waxa la qaatay madaxweyne Putin 3 bilood oo ugu dambeysay sanadii 2014 Oktoobar, Novembar iyo Disembar. shirkadaha ruushka waxa lagu lahaa lacag dayn ah oo gaaraysay $60 bilyan oo dollar. haddii ay daynkaas bixin waayaan, jaha aan la garanayn ayay noloshu wejiga saari lahayd. go'aanka la qaatay dartiis lacagtii ruushku waxay hoos u dhacday 40%. waxaa culays ku yimid dadka uu dakhligoodu yaraa, kuwaas oo noloshoodii ay saamaysay hoos u dhaca lacagta rubulka ku yimid. taasina waxay ka dambaysay madax bannaanidii la siiyey sayladaha saraafadda inay iyagu jaangooyaan sicirka dollarka. hawshaas waxaa dhinac socday hawl kale oo ahayd sababta go'aanka loo qaatay. mashruucii Elvira Nabolina ay ku badbaadinaysay dhaqaalaha dalkeeda ruushka wuxuu noqday mid guushiisa ay goor dambe soo baxdo. natiijadii la helay waxay noqotay muddo 10 sano ah in lacagtii cusreed ee tiilay kaydka bangiga dhexe ay 2 jibaaranto. sanadii 2014 kaydka lacagta culus oo ay ruushku u haystay waxay ahayd $385 bilyan oo dollar. sanadkan 2022
kaydkaasi wuxuu gaaray 643 bilyan oo dollar. kaydka dahabka ah oo u yaala Ruushkana waxa uu kordhay ilaa iyo 2300 oo tan oo dahaba. Elvira Nabiulina intaas kuma ay harin, bal waxay ku dadaashay inay kaydka bangiga dhexe ay ku yarayso cumlada dollarka oo ay la wadaajiso lacagaha kale ee culus. arrintaas oo ah mid ay ku guulaysatay waxa laga garan karaa sanadii 2017 kaydka bangiga dhexe ee Ruushka dollarku waxa uu ahaa 40%. sanadkii 2021kiina dollarku waxa uu ka ahaa 16%. imtixaankii ay Nabiulina gashay sanadii 2014 wuxuu ahaa midkii ugu weynaa oo ay ku guulaysatay magac weyn ay ku heshay. tijaabadaas ayay sanadahaasi ku noqotay haweeneyda dunida ugu awoodda badan. waxay noqotay mid dalkeeda looga bixiyay naanaysta ah cirbadii quruxda iyo badbaadada. Elvira waxay dhaqaalihii dalkeeda u ciyaarsiisay si qurux badan. waxay dhex mushaaxisay siyaasadaha dhaqaale ee casriga kuwaas oo ku dhisan hanaanka ilbaxnimada ee laga dhaxlay tijaabooyinkii nolosha ee la soo maray. laakiin waxay ahayd tallaabo ay ku hareeraysan tahay khataro badan. sanadii 2014 sicir bararkii xilligaas ee dalkaasi Ruushku uu la tacaalayay waxa uu ahaa 15%. tallaabooyinka kala horreeyay oo ay ciyaartay Nabiulina waxay ahayd siyaasadda hakinta sicir bararka. sanadii 2014 sicir bararku heerka uu marayay wuxuu ahaa 15%. waxayna ku dadaashay inuusan intaas dhaafin oo ay halkaas ku hayso, waana ay ku guulaysatay. waxay joojisay dhiigbax dhanka lacagta ee ku socotay bankiyadii Ruushka, markaas oo bil walba shirkadihii shisheeyaha ay dalka kala baxayeen lacag dhan 5 bilyan oo dollar. qorshaha Nabiulina ma ahayn mid horey loogu tijaabiyey dal weyn oo sida Ruushka oo kale ah. qorshahan ayaa magaciisu waxa uu ahaa Ruushiyada la xoojiyey. iyadu waxay ku xasilisay dhaqaalihii dalkeeda. taasi waxay dhalisay in maalgashigii shisheeyuhu uu dib u soo laabto. waxa bilaabatay in tobaneeyo balaayiin oo dollar ah lagu soo yaacsho bangiyadii Ruushka. lacagtaasi waxay ka imanaysay maalgashiga shirkadaha shisheeye oo ku kalsoonaaday caafimaad qabka dhaqaalihii Ruushka. magaca Nabiulina wuxuu markiiba noqday xidig ka dhex muuqda caalamka. bangiyada dhexe iyo khubarada farsamo yaqaanada loo xil saaro hoos u dhaca qiimaynta, xakamaynta iyo nidaamyada maaliyadeed. khibradda ay gabadhani ku guulaysatay waxaa loo arkayay tijaabo qurux badan oo ku kordhaysa khibradihii siyaasadda dhaqaale ee horey loo hayay. sanadii 2015 wargeysyo badan oo Yurub ka soo baxa ayaa Nabiulina u magacaabay qofkii sanadka ee bangiyada dhexe ee dunida. haweeneyda la yiraahdo Christine Lagarde oo ah siyaasi, dhaqaalayahan iyo qareen u dhashay Faransa, gudoomiyana ka ahayd hay'adda IMF, ayaa sanadii 2018 waxay Nabiulina ku sheegtay inay tahay qof ka yeeli karta bangiyada dhexe kuwa iyada u heesa marka laga qiyaas qaato afkaaraha dhaqaale ee ay dunida ku soo kordhisay. laba arrimood ayaa sabab u ahaa in shirkadaha caalamku ay lacagahooda ka soo buuxshaan bangiyada Ruushka. mid waxay tahay hantida maguurtada ah oo dalkan uu hodanka ku yahay. midda labaadna waxay tahay kalsoonida ay ku qabeen gudoomiyaha bangiga dhexe Elvira Nabiulina. dalka Ruushku wuxuu ka mid yahay wadamada ugu hantida badan dunida marka laga eego hantida dabiiciga. bangiga dhexe ee Ruushku wuxuu dib u yeeshay kayd wanaagsan. Ruushka oo isu diyaarinayay weerarka Ukraine wuxuu ogaa inay suurtagal tahay in Yurub ay joojinayaan gaaska ay ka iibsadaan si ay ugula diriraan dhaqaalaha. sidaas darteed xataa haddii ay taasi dhacdo iyaga oo dagaal kale kula jira Ukraine, in lacagta kaydka u ah uu dalka ku filan yahay isla markaana uu caqabadaha kaga bixi karo. laakiinse Ruushku marnaba kuma fekerin in Maraykan iyo xulafadiisu ay isha ku hayaan bangiga dhexe iyo kaydka yaala. sidaas darteed ayay ula socdeen dhaqdhaqaaqa Elvira Nabiulina. kadib markii ay u muuqatay inay badbaadisay dhaqaalihii dalkeeda, Putin wuxuu u sharaxay gabadhan inay ka mid noqoto aqoon-yahanada u sharaxnaa sanadii 2021 inay qaataan biladda caalamiga ee Nobel Peace Prize. bangiga dhexe ee Ruushku wuxuu markaas dunida ka noqday bangi uu yaallo
kaydka ugu badan ee lacag shisheeye ah iyo macdanta dahabka ah. sumcaddii bangiga dhexe ee ruushku kor ayay u soo kacday oo wuxuu la miisaan noqday bangiyada caalamiga ah ee safka hore kaga jira hannaanka maaliyad ee hufan. bishii maarso sannaddii 2022 madaxweynaha ruushka valadimir putin wuxuu mar saddexaad u magacaabay elvira nabolina guddoomiyaha bangiga dhexe ee ruushka. isagu wuxuu ka baqayey inuu ku fashilmo dagaalka uu dalkiisa geliyey, sidaas darteedna uu ku yimaado dhaawac siyaasadeed oo uusan ka soo kaban karin. wuxuuna uga baahday gabadhan inay ka xigsato dabaylaha dhaqaale ee uu kicinayo dagaalka labaad ee Ukraine, kaas oo carshigiisa gelgelaya. mas-uuliyiin badan oo ruusha ayaa sheegay in wakhtigan ruushka aan laga weerari karin bangiga dhexe, halkaas oo uu fadhiyo shakhsi adag. imtixaankii ay nabolina gashay sannaddii 2014 wuxuu ahaa midkii ugu weynaa oo ay ku guulaysatay, magac weyna ay ku heshay. tijaabadaas ayay sannadahaas ku noqotay haweeneyda dunida ugu awoodda badan. elvira sidaas ayay ku noqotay gabadhii badbaadisay ruushka iyo putin.